Assalaamu calaykum. Maanta waxaan sameynaynaa asxaabta quraac yar oo fudud ama casho yar oo fudud. Mar walba dee qof kale lama joogo oo cid wax kuu samaysa ma helaysid. Laba xabo oo ukuna ayaad soo qaadanaysaa. Anigu jabcadda yar baan soo qaatay oo ku diyaarsanayaa. Aad baad u garaacaysaa, waa is dhex gelinaysaa, aad baad iskugu celcelinaysaa si ay ukunta xabka iyo inta huruudda iskugu ekaadaan. Mar walba qof kale lama joogo oo wax ma dee cid wax mar walba kuu samaynaysa ma jirto. Mar waa inaad quraacdaada yar dhac iyo quraac fudud iyo breego fudud. Laba xabo muus ah ayaan isna soo qaatay. Aan doonaya inaan ku googooyo. Dadka qaar waxay ku googooynayeen malgacad ama bahashan yar ee fargeetada la dhaho ayay ku burburinayeen, balse anigu taas wax darteed waxaan soo qaatay koobka khudradda lagu shiidayay, hilibka iyo waxa lagu shiidayay. Taas wax bay iga tahay maahe, waxaan isleeyahay aad ha isu dhex gasho, wax igama aha. Waad googooynaysaa insha Allahu tacaala haddii la yiraahdo. Labada xabo muuska ah iyo ukuntii ayaad isku dhex daraysaa. Saasaan u googoostay anigu. Waa ka koobka yar baan ku diyaarsanayaa. Hooyaa kala soo dhuuntay aalisay ku arkin koobka khudradda. Ukuntii baad ku darsanaysaa, waad isku celcelinaysaa, aad baad u walaaqaysaa saanay waxa weeyaan u kala xumaanin. Waad isku shubanaysaa hareerahan saa ugu mirmiriyay sayday isu dhex gashay hadhow mashiinku aad u ridqo bahasha. Boorashkan soo qaadanaysaa ama shoofaanka ama kabtan awtiska baa soo qaadanaysaa. Dhowr malgacdood baa ku darsanaysaa. Waxaa ku darsaday 2 1 iyo 2 3 4 afarta malgacdood ayaan ku darsanayaa. Iminka markaa mashiinka baan xidhay. Mashiinka ma garanayo oo cabaar baan wadwadayaa. Marka hore uu aniga ka soo shubay, aad baan sii dhex gelinayaa, waan isku burburinayaa. Muuska wixii taagtaagan dee wax ku taagtaagan waayo mashiinkaanan garanayn. Sidaa darteed baa waxa weeyaan uu hadduu doono igu burburi waayay. Ka bacdi waan yara burburinayaa si uu isu dhex galo oo uu noqdo waxa weeyaan dee wax kale arag ah oo mar la arag ah. Malgacadda yar baan ku burburinaya. Qof walba sheegu wato iyo dee malgacadda qaadadu awoodo ku awoodo ayuu waxa weeyaan ku burbursanayaa. Aniga waa kanaan ku burbursaday. Waan is dhex gelgelinayaa, waan wadaa. Waxaan isleeyahay kaa kala bahal quraac oo kaalay arag ah oo lama arag ah oo aan samaystay ama casho yar oo fudud baad ka dhigan kartaa habeenkii. Aad bay u fiican tahay dhanka caafimaadka. Waa muus iyo waxa weeyaan shoofaan yacni boorash iyo ukun aad buu u fiican yahay. Miqliga yar waan soo qaatay. Saliid yar baan marinaya suuda iiga fuqo una wixii ku dhagin la wixii jela maahe ama laxoox maahe. Saliida yaraan waxaan iskaga marsanayaa farahayga, laakiin burshar iyo waxbaad ku marsan karaysaa. Soomaalida guryahan xaqiiqada ahi wado sida hadhow qof walba wuxuu ku oranayaa maxaad faraha ugu marinaysaa maha. Taas culture-keeni ayaa xadidaya. Waan soo qaatay in waan ku shubanayaa. Iminka waan ku shubtay. Markaas dabkii shooladii baan diyaarsaday. Gaastii baa ii hulcaysa. Anu gaastaasaan ku samaystay. Maanta jaabin dabka caadiga laakiin gaastaasaan ku diyaarsaday. Marka qof walba gaasta noocaas anu ovenkaasaan ku diyaarsaday. Saasay noqotay ajaayib markaan ku shubay. Aniga waa ka soo dhigay inta yar ee cashada ah iyo koob shaaha baan beerka iska saarayaa. Kaalay arag waxay noqonaysaa wax ajaa'ibteeda leh.